السلام عليكم. walaalayaalow waxaa jira cudur aan dawo lahayn yacni aidiska iyo kansarka xataa ka daran cudurkaas oo soomaalida intooda badan kuwan hore u yaqaaneen kuwan hadda lagu daartay oo wuu faafay cudurkaaseeti waa cudurka qabyaalada la dhaho qof kasta qabiil buu ka dhashay qof kastana nasabiyadu leeyahay laakiinse ma ahan in maaragtay maanta oo dhan anaa baarka sare alaabtaan ka waxaysmaa sheekadii ma arkino waxaad tihiin askar kulligiin qaxootiyaad tihiin meelahaasaad dawarsataan wadankiina yaa soo baabi'iseen inta qabiilaystayaashan ka hadlaya haddana sunbaa faafinaysaan idinkoo wadamo shisheeye tuugsada ilaa yaa ogaada inta hadda meelaha soo fariisato waa dhahda guryaha dowladda ay ku jiraan cayrtay tuugsadaan orda naftiin wax u qabsada wadanihiina raacda oo ma aragtay wadamadan aad joogtaan wasaqda iyo qashinka kala taga haddaa laabta ka xaragoota orda tuulada ka timaadeen ku noqda niman iyo naago waxay dhaleen aan war ka haynin minneapolis aniga joogaa shalay ugu dambeysay laba wiil oo isxabadeeyey mid toori la geliyey inta ciyaal oo kaniiniga u dhimanaysa nobody's talking about that ma garatay mid walba waxaa inta meeshan soo fariisatay waxaa waa cudur iyo balaayad faafinayaan iyo qabyaalad iyo daniina ku foofaan idin especially dumarka inta meelaha isku soo fariistaan mikrofoonka isku soo qabsanaya oo leh aniga reer hebel aniga orod reer hebelka tuulada degaan dee orod tag maxaa u soo noqot maxaa halkan u timi laabta ka xaragootidoo ma aragto saa tahay why you here ismadhaantii dhasheedaa tihiin qabyaalad baad faafinaysaan iyo uskag waxa waaye wax aan diinta raali ka ahayn qof kasta qabiil buu ka dhashay litacaarafu waa la yiri ma garata qofna dhulka kama dhalanin laakiin waxaa qashinkan aad faafinaysaan iyo jahliga aa wadankiini kusoo baabi'iseen homelesska dad waxaa arkay dhahay falastiin mar dhow waxaa arki doontaan soomaaliya oo dhan wada falastiin wadankooda lala wareegay